in ka badan 12 saac hotelka Villa Rose waxaa ka socda iska horimaad u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadkii xalay fiidkii weeraray hotelkaas. salaadii cishe kadib weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ahaa ayaa xubno ka tirsan al-shabaab waxay ku qaadeen aagga sida weyn loo ilaaliyo oo ku yaala nawaaxiga xarunta godka Jilicow sidoo kalena ku dhow aqalka madaxtooyada Soomaaliya. dhawaaqa qarax inta badan laga maqlay degmooyinka ku xeeran halka weerarkan uu ka dhacay ayaa dhacay waxaana xigay rasaas laba dhinac ah oo weli laga maqlayo gudaha hotelka. qaraxa kadib maleeshiyaadkii weeraray hotelka ayaa gudaha u galay kuwaas oo muddo saacadaha xilligan ka dhex dagaalamaya. mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ayaa deganaa hotelka la weeraray kuwaas oo lagu guuleystay in goobta laga soo saaro. booliska Soomaaliya oo xalay qoraal kooban soo saaray ayaa sheegay in lagu guuleystay in mas'uuliyiinta xilligii weerarka uu bilaabanayo ku sugnayd goobta lagu guuleystay in la soo badbaadiyo. waxaa jira khasaare hordhac oo ka dhashay weerarkan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu leeyahay. ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ayaa buuxdhaafiyay goobta kuwaas oo ku dadaalaya inay soo afjaraan maleeshiyaadka goobta ku jira. ma jirto cid loo ogol yahay inay goobta tagto. ciidamada dawladda ayaana sidoo kale xiray dhammaan jidadka soo gala aagga uu howlgalka ka socda iyo wadooyinka gala madaxtooyada. wararka qaar ayaa sheegaya in xilliga weerarka uu dhacay gudaha hotelka uu ka socday shir looga hadlayay arrimaha gobolka Gedo oo mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkaas ay halkaas ku shirayeen. halka uu weerarka ka dhacay waxa ay tahay goobaha ugu amniga badan caasimadda maadaama ay ka agdhowdahay xarunta godka Jilicow oo ah halka nabad sugidda Soomaaliya ay ku xirto dadka lagu soo qabto dambiyada culus iyo xarunta madaxtooyada ee dalka looga arrimiyo. xilliyada qaar xitaa waxa adag inaad marto adiga oo wato aqoonsiga hay'adda aad ka tirsan tahay. waxa ayna noqotay mid la yaabo in la weeraro goob sidan oo kala ah amnigeeda aad loo adkeeyo. war qoraal ah ayay ku sheegteen weerarkan maleeshiyaadka al-shabaab. welina ma jirto faahfaahin kale oo ka soo baxday dawladda marka laga reebo qoraalkii uu booliska xalay soo saaray.